si fudud uma noqonin bilyaneerka ugu da'da yar, laakiin dhalinyaradiisii dadaalku sameeyay ayuu horumarkan oo dhan ka muuqday. Mark Zuckerberg, mulkiilaha shirkadda Facebook ee ugu weyn baraha bulshada dadku ku wada xidhiidhaan. Muuqaalkan maantana isaga in kaga hadlana, fadlan haddaad nagu cusubtay subscribe saar si aad noola socoto muuqaalada dambe. Daawasho wacan. wuxuu dhashay Mark 14 bishii May 1984. Reer Yahuud ayaa dhalay, inkastoo isagu sheegan jiray markii hore mulxid inuu ahaa, laakiin markii dambe haddana wuxuu sheegay in diintu muhiim tahay, isaguna aanu mulxid ahayn. Mark markuu dugsiga sare ku jiray wuxuu bilaabay isticmaalka kombiyuutarka. Aabihii ayaa arkay xiisaha wiilkiisu kombiyuutarka u hayo, markaas uu qabtay macallin guri si uu wiilkiisa xirfadiisa ugu sii horumariyo. muddo kadib Mark wuxuu noqday programmer fiican, waxaanu sameeyay programmo fara badan oo kamid ahaayeen Zooknet mid lagu magacaabi jiray oo sida messengerkan maanta isticmaalno kale ah. waxaan isticmaali jiray familkiisa kaliya si ay ugu wada xiriiraan. aabihiina wuxuu adeegsan jiray hospitaalku ka shaqeeyo si isagii kalkaalisooyinku ugu wada xiriiraan marmarka qaar. sanadii 2002 Mark wuxuu bilaabay jaamacadda Harvard lagu magacaabo, waxaanu bartay psychology iyo computer science. intuu jaamacadda ku jiro wuxuu soo kale sameeyay dhowr program oo kamid ahaayeen FaceMash mid lagu magacaabo oo ardayda sawiraantooda la isbarbar dhigi jiray, kadibna kooda ugu shidan ayaa la qaadan jiray ama la dooran jiray. laakiin muddo gudaheeda jaamacaddu waxay xidhay maadaama ardayda qaar ka soo cabteen programkan uu Mark Zuckerberg sameeyay oo sheegay in sawiraantooda si bilaa fasax loo qaatay loona isticmaalay. Markna raaligelin ayuu ka bixiyay arrintaas. haddana wuxuu sameeyay isaga iyo saddex kamid ah asxaabtiisa program lagu magacaabo Harvard Connection oo ugu talagalay in ardayda jaamacaddu ku wada xidhiidho. haddana Mark markale wuxuu sameeyay website lagu magacaabo The Facebook oo markan kiisii hore ka duwan oo qofku koonto isagu u gaar sameysanayo sawiraantiisana si iskii ah isagu soo dhigayo. waxaan oo dhan waxay sameeyeen isagii saaxiibadii iyagoo degan qol jaamacadda ku dhex yaala. sababtu Mark markuu sameeyay website-kiisa The Facebook uu kalarka buluuga u doortay waxay tahay maadaama uu ka cabto color blind inuu yahay ama midabada qaar aanu si fiican u arkaynin. sanadii 2004 Mark uu iskaga tegay jaamacaddiisa isagoo sanadii labaad ku jira. waxaanu u go'ay horumarinta website-kiisa The Facebook oo markaa 1 milyan oo dad ku xidhnayeen oo ugu badnaayeen ardayda dhigaysay jaamacadda Harvard. markaas 2006 wixii ka dambeeyay Facebook dunida ay ku soo faaftay, waxaana noqotay website-kii ugu weynaa ay dadku ku wada xidhiidhaan ilaa haddana way tahay. waxaana 2019 ku wada xidhiidhay Facebook 2.45 bilyan oo qof. Mark hantidiisa sanadan aan joogno 2021 waxay gaaraysaa 90 bilyan oo dollar. kuma ekaan Mark horumarku ka sameeyay Facebook oo kaliya, wuxuu sii raadiyay horumar kale oo wuxuu iibsaday website sanadii 2014 qiimo dhan 19 bilyan oo dollar. soo kale wuxuu iibsaday Instagram sanadii 2012. inkastoo waxaasoo hanti uu haysto, haddana hal garan ayuu maalin walba xidhaa. waxaanu sheegay in waqti yar ku qaadato xidhashada garankan, waqtina aanu haynin kala doorashada dhar kala duwan. muuqaalkan maanta intaas uu noogu yahay. fadlan la sii wadaaga asxaabtaada oo share. Assalaamu calaykum.